ridhaad komishineer maxamed cali xasan waxa uu ka mid ahaa xubnihii loo magacaabay xilalka kala duwan ee deegaanka waxaana magacaabistaasi qayb ka ahayd isbedelada kala duwan ee ka socda deegaanka iyo dalkaba haddaba kadib markii uu xilka komishinka booliska ee deegaanka uu la wareegay ridhaad komishineer maxamed cali xasan kalena wareegay komishineerkii ka horreeyey ee farxaan daahir ayaa warbixin uu siiyey warbaahinta deegaanka waxa uu ku sheegay inuu ka komishineer ahaan aad iyo aad uga xun yahay dhibaatooyinkii dhowaan ka dhacay deegaanka ugana tacsiyadaynayo dadkii ay markaasi dhibaatooyinkaasi saameeyeen. bismillaahi raxmaani raxiim sidaan wada ogsoonahay bishii hamle 28keedii deegaankeena waxaa ka dhacday dhibaato aad u ballaaran taas oo dhibaatadaasi ay geysatay naf iyo maalba waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku naf waayey ehelyadoodii ku naf waayey waan u tacsiyeynaynaa dhibaatadaa gaadheen dadkii waan u tacsiyeynaynaa. komishineerka komishinka booliska deegaanka ayaa sidoo kale kula dardaarmay shacabka deegaanka inay hay'adaha amniga ay markaasi kala shaqeeyaan nabadgelyada deegaanka isla markaasina ay ilaaliyaan amniga iyo xasiloonida iyo wada noolaanshaha qowmiyadaha. midda kale dadka aan shacabkan farayna waxaa weeyaan in ay isbedelka dhammaan Itoobiya dhan ka hana qaaday inay la jaan qaadaan ay la shaqeeyaan maadaama la fasaxay dhammaan hadda isbedel ka dhacay Itoobiya dhan xorriyad qolkii la fasaxay deegaankeena hadda uu ka hirgalay in xukuumadda hadda la aasaasay ee isbedelkani uu keenay in ay shacabku ay garab istaagaan ay la shaqeeyaan wixii dhibaato ee ka dhacday deegaankana iyadoo nidaamka cadaaladdeed loo marayo in tallaabada sharciga ku habboon laga qaadi doono ayaysan dhicin inuu ruux kale ka aragoostay ina dhicin wixii dhibaato qaba nidaamka sharciga cadaaladda iyadoo loo marayo inuu nin walba meesha hay'adaha qusayso oo wixii nidaam uu qabo ka dacwoodo waxaan shacabka leenahay inay isbedelkan la jaan qaadaan ay garab istaagaan wixii nabadgelyada la sameynayana ay hay'adaha nabadgelyada dhammaan ay la shaqeeyaan sida booliska ciidamada qaranka iyo hay'adaha kale nabadgelyada kala gedisan dhammaantood. aniga maanta la soo magacaabay komishineer ahaan shaqadii hadda immediate waan galnay marka waxaa loo baahan yahay shacabku inay hay'adaha nabadgelyadu dan bay noo wada tahay dhammaan inaga nabadgelyada maadaama inaga dan noo tahay in waxaa loo baahan yahay shacabku ay nabadgelyada ka shaqeeyaan. ridhaad komishineer maxamed cali xasan komishineerka komishinka booliska ee deegaanka ayaa sidoo kale caddeeyey in sharciga la horkeeni doono cid kasta oo markaasi ku xadgudubtay sharciga tallaabana laga qaadi doono sida komishineerkii uu xilka kala wareegay ee farxaan daahir oo tallaabo waqti xaadirkan laga qaaday sida uu noo caddeeyey komishineerku. magacaabidda xubnahani loo magacaabay mas-uuliyadaha kala duwan ayaa waxay qayb ka tahay isbedelada siyaasadeed ee markaasi ka bilaabmay deegaanka.